munaasabadda xaflad heerkeedu sareeyo isla markaana lagu dabaaldegayay sanad guurada koowaad ee iskuulka Al-Miftaax oo la aasaasay bishii Abriil sanadkii tagay 2024 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Iskuulka Al-Miftaax oo hal sano jirsaday ayaa waxaa baahi weyn looga qabay xaafadda Wajeer iyo guud ahaan degmada Kaaran ee gobolka Banaadir, waxaana aasaasidiisa dhabarka u riday macallimiin ay ka go'an tahay soo saaridda jiil wax ku ool ah iyo sare u qaadidda cilmi fahamka ardayda Soomaaliyeed. Xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay macallimiin si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho, waalidiin, marti sharaf iyo ardayda dhigata iskuulka Al-Miftaax. ugu horeyn xafladda ayaa waxaa daafuray Ustaad Daawud Xasan Cali oo ka mid ah aasaasiyaasha iskuulka, waxaana uu sharaxaad kooban ka bixiyay hababkii uu soo maray iskuulka muddada uu jiray iyo waxyaabaha uu u qabtay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan xaafadda iskuulka uu ku yaal. waxaan rabaa inaan wax yar oo ka taabto aasaasitaankii iyo heerarkii kala duwanaay ee uu soo maray iskuulka Al-Miftaax Institute of Language and Science. ugu horeyn horta iskuulka Al-Miftaax waxaa la aasaasay 23 bisha Abriil 2024 xaqiiqatan xilliga waxay ahayd xilli adag marka xilli adag baa lagu jiray macnaha si daran baa loogu baahnaa iskuulka in la furo marka sababtu waxay tahay xaafadan aynu deganahay ee Wajeer markaan fiirinay macnaha ku galnay ma aysan jirin wax bareefadi ah ama iskuulo noocan ah oo macnaha ardayda ka qabtiraan baahida waxbarashada. sidaa darteed markaan aragnay waxbarashada si loogu baahan yahay iyo iskuul la'aanta ka jirto bareefada noocan ah oo ardada ka dhiso dhanka aqoonta ha ahaato qaybaha asaaska ah iyo qaybaha midalka ahba, maadaama aysan iskuulo noocaas aysan jirin waxaan ku dhiiranay oo guntigaan u dhuuqsanay inaan furno oo iskuulkan aan magaciisa aan ugu magac darnay iskuulka Al-Miftaax oo xaqiiqatan aan ugu talagalnay inaan jiilkeenaga hadda soo barbaaraya ujeedada quruxda badan caawa halka ay ka muuqdaan inaan aqoonta iyo intaan ka roonahay ama aan uga soo waayarinimo aan ka badanahay inaan deeqsiino. xaqiiqatan iskuulka Al-Miftaax aasaasitaankiisa aad baa loogu baahnaa xilliga, sababtuna waxay ahayd iskuulo lacayn ah oo meesha ka jirin. sida caadiga ah iskuulka Al-Miftaax daraasada uu bixiyo waa daraasada asaasiga ayaan ku bilownay iyo daraasada middle-ka ee dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ardayda dhiganayaan ayaan markii hore ku furnay. haddana waxaan sii rajaynaynaa in maadaama iskuulka oo hal sano jirsaday ee sanad guridiisii koobaad aan caawa u dabaaldegayno in waxa haddaan ka dambeeyna insha Allah ay sanadada soo socdo oo aan ba qaadi doono dhanka iyo daraasada sare ee dugsiga sare insha Allah ku soo kori doona waa waxa aan rajaynayno. dhankooda waxaa munaasabadda ka hadlay macallimiinta iyo waalidiintii ka soo qayb galay iyagoo jeediyey kelmado isugu jira bogaadin iyo hambalyo ku aadan munaasabadda sanad guurada koowaad ee iskuulka Al-Miftaax. sidoo kale xafladda sanad guurada koowaad ee iskuulka Al-Miftaax ayaa waxaa ku lamaaneed abaalmarino la siiyay ardaydii kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ka galay tartan aqooneed loo qabtay ardayda dhigata iskuulka. intaas kadib waxaa mahad u sugnaatay sidoo kale ardayda dhigata iskuulka Al-Miftaax ee caawa u dabaaldegaya sanad guuradiisa koowaad iyo macallimiintooda oo runtii ayaguna dhabar adeeg badan muujiyay waqtigoodana ardayda Soomaaliyeed wax ka siiyay inay wax ku baraan oo bulshadu ay wax kaga bedelaan ayaguna aad ay u mahadsan yihiin. waqtigan iyo xilligan qiimaha badan oo aan u dabaaldegayno xafladan qiimaha badan ay nagula sugan yihiin oo ay nagala qayb galayaan dhammaan macallimiin, waalidiin, dad barofesor ah iyo arday qiimo badan. waxaan leeyahay iskuulku waa qayb ka mid ah qaybaha ay bulshadu ka dhismato amba halka bulshada lagu dhiso oo garaadka, caqliga, cilmiga qofka looga dhiso. cilmigu waxaa la yiraahdaa waa wuxuu siyaadiyaa waa garaadka amba caqliga qofka bini'aadamka ayuu siyaadiyaa. marka wax waliba la bartana waa mar waliba bani'aadamka ama qofka bani'aadamka oo wax barto waa mar waliba oo caqligiisa oo sare u sii kaco. marka waxaan leenahay macallimiinteena qiimaha badan, asxaabtaydana ah waxaad haysaan shaqo muhiim ah, Allah idinka abaal mariyo. ardaydana waxaan leeyahay dadaalkiinu waa aragtaan halka aad maraysaan, waxaad haysataan macallimiin qiimo badan, dhisan dhan waliba ka dhisan, diyaarsan. waxaan rajaynayaa inaad noqotaan dadkii ka faa'iideysan lahaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan la dabaaldego team Al-Miftaax. waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan soo hor istaago wajiyadan aadka iyo aad u qurux badan
inta maanan u soo istaagin in aan khudbad amba wax idin soo jeediyo kulley wixii tala amba tusaale ahaa macallimiintii iiga horeysay iyo waalidiintii iiga horeysay ayaa bixiyay laakiin waxaan idin leeyahay caawo idil dardaaran ayaa niila siinayay naqda kuwii dardaarankaas qaato hal dardaaran ayaa ku darayaa oo ah kulley waxbarashada dad ku dadaalo waa tihiin waxaad samaysaan oo aad ka hormarisaan birrul waalidayn in waalidka baari loo naqdo mar walbo aad waalidka baari u tahay waxaa kuu hirgalaysa in aad naqataa arday fiican oo ah wax barta ugu dambeyn waxaa soo gunaanaday sooni xiray xafladda mid ka mid ah barayaasha iskuulka kana mid ah aasaasayaasha iskuulka ustaad mahad salaad cumar sidoo kalena ah gudoomiyaha midowga ardayda iskuullada albayaan faraciisa karaan isagoo u mahadceliyey macallimiinta iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdaasi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiintayda qiimaha badan ee wakhtiga inoo soo huray caawa barnaamijka kani qiimaha badan iyo xafladda tani aan ugu dabaaldegaynay sanad guuradii koowaad ee iskuulka almiftaax dhab ahaantii waxay soomaalidu tiraahdaa anigaa dhiman looma hadlee waxaa loo hadlaa hadal unbaa dhiman waxaanu leeyahay hadalkiisa qiimaha badnaa waxaa inagu shubay caawa haddaanu nahay bahda almiftaax macallimiintayna qiimaha badan mar labaad iyo mar saddexaad umahadcelintooda dhab ahaantii kama gaarno sooma koobi karno waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin sida milgaha leh ee aad usoo ajiibteen wacahayni waxaanu leenahay bahda almiftaax waxay diyaar u tahay mar weliba soo saaridda jiilka cusub iyo sara u qaadidda himada iyo insha allahu tacaala kornaqashada ardayga soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad xafladda tani caawa aan ugu dabaaldegaynay sanad guuradaynii koowaad ee iskuulka almiftaax halkaasi ayay inoogu xiran tahay guud ahaan macallimiinta qiimaha badan ee ka soo qayb galay ajiibana wacahayna waxaanu leenahay mar saddexaad iyo mar afraad waad mahadsantihiin xafladeennana caawa halkaas ay inoogu xiran tahay sanado dambe oo wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh